toddobaadkan waxaa adduunka looga dabaaldegayay maalinta haweenka adduunka. haweenka Soomaaliyeed ayaa qaarkood dadaalo iyo wax soo saar waxa ay sameynayeen sanadadii ugu dambeeyay. haddaba wariyaheena magaalada Qardho Maxamuud Nadiif Shira ayaa waxa uu la kulmay gabadha kaliya ee macallimada ka ah jaamacadda magaalada Qardho. warbixintan ayuuna magaalada Qardho inooga soo diray. waana ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo bahda macallimiinta jaamacadda bariga Afrika qaybteeda caafimaadka Qardho. in ku dhow 25 rag oo macallimiin ka jaamacaddan ayay wehelisay kaligeed waana gabadha kaliya ee xiisadaha jaamacadda hadda wax ka bixisa. ardayda dhiganaysa jaamacadda bariga Afrika faraceeda Qardho ayay saacadiyo uga duwan tahay macallimiinta kale. gabdhahan halkan wax ka dhigtana waxay u tahay wehel iyo tusaale u gaar ah. walahi waxay iga dhigan tahay guul aad weyn waxayna tusinaysaa gabar kasta oo wax baratay inay bulshadeeda qaabkay noqotaba waxay barataba ay u soo gudbin karto bulshadeeda ugu shaqeyn karto inay tahay mid macquul ah. run ahaantii maamulka jaamacadda iyo ardaydaba soo dhaweyn aad fiican baan kala kulmay. aad bayna u mahadsan yihiin. Saacadiya Ismaaciil oo da'da sodomeeyada ku jirta waa hooyo dhaqanaysa reerkeeda, waa macallimad waana dhakhtarad wax ku soo baratay dalalka China iyo Hindiya. Doctoraysa Saacadiya waxay ku takhasustay cudurrada hooyada iyo dhallaanka. in ay reer yeelato kama aysan reebin in ay bulshadeeda u shaqayso. Saacadiya waxa ay sheegtay intaasi aysan marnaba qofka ka dibridi karin sida uu kaalintiisa bulshada kaga aadan u buuxin lahaa noloshiisana uu horumar u gaarsiin lahaa. waxaan ahay hooyo iyo xaas iyo sidoo kale waana shaqeeyaa. marka waxaan dhigi karaa waxay kugu suurtoobaysaa inaad intabaad ka soo baxdid inaad la timaadid dadaal dheeraada oo shaqo kasta waxay leedahay ama waxay wadataa culayskeeda wadataa. marka waxa loo baahan yahay dadaal dheeraada oo inuu qofku la yimaado iyo hiigsi uu leeyahay uu doonayo inuu ka guulgaaro. maamulka jaamacadda bariga Afrika ayaa dhankooda sheegay in gabdhaha wax soo bartay ay Saacadiya u tahay tusaale ayna markasta iyagu fursad siinayaan cid kasta oo diyaar u ah inay waxbarista sare ugu adeegto bulshadeeda. jaamacadda waxa ka shaqeeya runtii shaqaale badan baa ka shaqeeya. waxa ka shaqeeya jaamacadda macallimiin aad u fara badan. macallimiintaas waxa kamid ah laba gabdhood ayaa kamid ah. waxa Saacadiyo iyo Safiyo. Saacadiyo waa macallimad ka shaqeysa kulliyadda medicine-ka iyo health science-ka qaybaheeda kala duwan. runtii waa macallimad aad khibrad fiican u leh oo aqoontii ay soo baratay iyo cilmigeedii bay wax u gudbinaysaa ardayda iyo bulshada guud ahaan. Safiyo waxay kamid tahay shaqaalaha jaamacadda gaar ahaan xafiiska maaliyadda. sidoo kale Safiyo waxay kamid tahay ardaydii hore uga baxday jaamacadda. halgan iyo dadaal dheer oo ay muddo ku jirtay Saacadiya 2017 ayay dalka dib ugu soo laabatay. ugu dambeynna waxay ka dhabaysay riyada caruurnimadeedii. raaxo badan ayay sugaysay miraha dheefteeda maantana waxay si hagarlii ah ugu adeegaysaa bulshadeeda. halkan ayay subax kasta ka howlgashaa Doctorayso Saacadiya Ismaaciil Yuusuf waxayna u adeegtaa bulshada ku soo booqata waana xarunta Care Hospital oo ku taala magaalada Qardho. sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa familkayga oo ku dhiiraday in waxbarasho siiyaan inaan heer sare aan ka gaarno oo meelo fog aan wax ku soo barano. khaasatan waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa aabahay walaalkay iyo sidoo kale hooyaday aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama ay nasiiyeen fursad aad iyo aad muhiim u ah. marka waxaan rajaynayaa qofka hadii isagu dhiiranaan la yimaado oo uu doonayo waxa inuu ka guulgaaro inuu noloshiisa u gaari karo hadafkiisa. Saacadiya waxay kula dardaarmaysaa haweenka inaysan marnaba isu dhiibin duruufaha nololeed ee ku hareeraysan balse ay muhiim tahay in markasta ay qaybtooda ka qaataan shaqada loogu adeegayo bulshada. halkan waxaan talo uga jeedinayaa gabdhaha wax bartay. waxaan leeyahay wax kasto aad baratid inaad ka guulgaartid waad awoodaa waana sameyn kartaa. qofku haduu qoys yeesho iyo haduu kaliyahayba mar walba waxa weeyaan mindkiisa ama maskaxdiisa qaabka uu u programyo mar walba sida u fakartid bay noloshaadu ay ahaanaysaa. marka qof walba choice buu leeyahay qaabka uu noolaanayo ma aha dadka inay hal wado ay wada maraan ma ahan laakiin qofku waxa uu noloshiisa
hamigu ka leeyahay wuu gaari karaa asagoo hooyo ah asagoo xaas ah asagoo bulshadiisii wax tari kara marka waxa la rabaa qofku inuu la imaado inuu dhiiranaan la imaado oo ka guul gaari karo markaas